السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. shaki kuma jiro shayga nebigu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay dawo inuu shaygaasi dawo yahay. Haddaba geedka qustal hindi waxa uu ka mid yahay dhirta nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dawanimadiisa. Sidoo kalena waa geed dadka isticmaala ay ka marakaceen dawanimadiisa. Haddaba muxuu dawo ka yahay geedka qustal hindigu? Haddii aad rabta inaad iska daweyso noocyada kala duwan ee bakteeriyada ee dhibka ku haysa bini'aadamka, isticmaal geedka qustal hindiga. Waxaanad soo qaadataa geedkan oo budo ah, kadibna waxaad malqacad yar ku darsataa shaah bigaysa ama biyo kulul 2 jeer oo kala ah quraacda ka hor iyo cashada ka hor, adigoo wadaya ilaa 3 bilood oo xidhiidha. Dhinaca kalena, haddii aad rabto inaad jidhkaaga ka saarto noocyada kala duwan ee infekshanka, isticmaal geedka qustal hindiga adigoo u isticmaalaya qaabka hore aynu soo sheegnay. Sidaas oo kalena, haddii aad rabto inaad kama dambays isaga daweyso noocyada kala duwan ee gaastariga iyo dhammaan xanuunada caloosha, waxaad isticmaashaa geedkan qustal hindiga. Sidoo kalena, haddii aad leedahay dhiikar oo aad rabto inaad si dabiici ah u xakamayso, waxaad isticmaashaa geedkan qustal hindiga. Isla markaana, haddii aad leedahay xanuunka kolestaroolka oo aad rabto inaad iska xakamayso xanuunkaasi, waxaad isticmaashaa geedkan qustal hindiga. Shantaa arrimood ee aynu sheegnay iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin waxyaabaha uu sida cajiibka u daweeyo geedkan qustal hindigu. Waxa iyaduna ka mid ah timirta barakaysan ee cajwa. iyadoo timirtu dhammaanteedba ay jidhkeenna u leedahay muhiimad caafimaad, haddana timirta la yidhaahdo cajwa waa timir ka duwan noocyada kale ee timirta, waana timir barakaysan, waana timir ka baxda magaalada barakaysan ee Madiina, waana timirta nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay waxtarkeeda. waxa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, qofka markuu waagu baryo cuna 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada, maalintaasoo dhan sun iyo sixirtoona waxba ma yeelaan. xataa haddii la isku dayo in la sixiro, sixirkaasi waxba ka qaadi maayo qofkii subaxdii markuu waagu baryay cunay 7 xabbo oo ka mid ah timirta cajwada. haddaba intaasoo keliya kuma koobna waxtarka timirtani ay u leedahay jidhka, waana timir ay ka buuxaan faytamiino, borotiino, karbohaydrayt iyo macaadin badan. waxay u fiican tahay nadiifinta caloosha, iyadoo caloosha dawo uga ah bakteeriyada iyo cayayaanka kale ee ku dhasha caloosha. waxaanay sidoo kale dawo u tahay xanuunada ku dhaca beerka. waxay sidoo kale dawo ka tahay xanuunka shubanka, iyadoo timirtan ay ku jirta maadada loo yaqaano tanaanin, waana maadad dawo ka ah xanuunkaas. waxaanay sidoo kale hoos u dhigtaa khatarta xanuunka kolestaroolka. waxaanay dawo u tahay caafimaad qabka ilkaha, iyadoo timirtan ay ku jirta maadada falorin, waana maado u fiican caafimaad qabka ilkaha. waxay sidoo kale timirtani dawo ka tahay xanuunada gaastariga iyo bawaasiirta. waxaa kaloo timirtan lagu daweeyaa dhiig yaraanta, iyadoo timirtan ay ka buuxda maadada xadiidku iyo sidoo kale faytamiin B2. waxaanay sidoo kale timirtani dawo ka tahay infekshanka ku dhaca maqaarka sare ee jidhka. waxay sidoo kale timirtani wanaajisaa dheefshiidka iyo habsami u shaqayntiisa.